muxiidiin sidaad la socotay ciidamada puntland waxa ay wadeen waayadii ugu dambeysay howlgallo ay kula dagaalamayaan daacish. waa tii dagaalo xoogan daacish iyo ciidamada puntland ay ku dhex mareen deegaano kala duwan oo buuraha cadmiska ku yaala. marka maanta ciidamada puntland waxaa u suurto gashay in ay la wareegaan goobo badan iyadoona aysan jirin wax iska caabina ay kala hor yimaadeen ururka daacish oo dhowr jeer oo hore isku horimaad uu dhex maray. marka ciidamada puntland maanta waxa ay ka sheegteen goobahan ay qabsadeen guulo waaweyn iyadoona goobahan ay yihiin goobo muhiima. marka muxiidiinow waayahay axmed cawilow, marka waxaad inooga warantaa bal goobaha cusub ee ciidamada puntland ay sheegeen inay qabsadeen maxay yihiin, halkayse ku yaalaan? muxiidiin horta goobuhu waxay ku yaalaan waxay ka mid yihiin buuraha cadmiskaas, gaar ahaan toga jacayl oo ah tog aad u weyn. waxaana la kala yidhaahdaa goobaha ay maanta ciidamada puntland ay la wareegeen shabeeb. waa meel tuulo ah oo weliba fariisin weyn u ahaa daacish. kayaxa sidoo kale way la wareegeen iyo deegaano kale oo ku hareereysan. waxaa goobahaas loogu tegay agabyo kala duwan oo muhiima. maxaa markaa ka mid ahaa agabyada halkaa loogu tagay ayay sheegeen ciidamada puntland? goor dhoweed aan la hadlay qaar ka mid a saraakiishu waxay ii sheegeen in ay ugu tageen shidaal, hub, dawooyin iyo weliba warshad ay sheegeen inay qaraxa ay samayn jidhay waxyaabaha ay ciidamada iyo dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan. marka agabyadaas kala duwan bay ugu tageen saadkii oo dhinac walba leh bay ii sheegeen inay ugu tageen. waa godad waaweyn oo aagaas ku yaalay, qaarkood hoos baa loo qoday. marka waxaa kaloo ay sheegeen inay ugu tageen guryo dhulka hoostooda ku yaala. waayahay axmedow, bal dhulkan marka lagu dagaalamayo hadda qayb ahaana laga qabsaday daacish, muhiimad intee la eg buu leeyahay? markaad fiirisid buurahan cadmiskaad muhiimad weyn ayuu ciidamada puntland ugu leeyahay dhulkan maanta la qabtay. sababtoo ah dhulkan waa dhul buuraha dhinacooda markaad egtid waa dhulkii ugu dambeeyey oo hadda ciidamadu waxa ay geli doonaan dhul dooxaa, inkastoo buuro kale ay ka horeeyaan, laakiin dhul bannaan ilaa iyo 20 kilomitr ay bannaan tahay ayay geli doonaan. marka dhulkan muhiimad gooniya u lahaa, waxaana muuqata in difaacyadii ugu cuslaa ay lumiyeen daacish oo ciidamada puntland la dagaalamaysay. ugu dambeyn bal ciidamada puntland halkee bay ku wajahan yihiin? halka ugu dambeysay oo loo socdaahi waa halkee? saraakiisha ciidamada puntland oo goor dhoweed la hadlay waxay i xaqiijiyeen meelaha ay ku jahaysan yihiin inay ka mid tahay dhaadaar iyo weliba dhasaan oo la aaminsan yahay meelaha ay kasoo farcmeen inay yihiin. marka dhulkaas ayay ii sheegeen inay ku jahaysan yihiin, inkastoo ay jiraan godad kale iyo buuro kale oo la rumaysan yahay inay ku jiraan. iyada laftigooda ay ciidanku sheegeen inay markii dhaadaar iyo dhasaan ay tagaan ay dhinacaas jihadaas ay u jahaysan doonaan.